السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ardayda iyo dadka kale ku xidhan baa channelkeena casharada caafimaadka waxaad kusoo dhawaataan course cusub oo aan idin bilownay oo ah nutritionka. waxaan idinka raaligelinayaa muddadii aadka u dheereed aan idinka maqnaa, waxaana ku maqnaa howlo imtixaan oo aan jaamacadda kaga jiray. daawadayaal dhammaantiinba ama dadka ku xidhan channelkeenan casharada caafimaadka inta badan aada u xiiseeya casharada markaan soo gelino kabacdina daawada kabacdina qaarna wax badan ka faa-iidaan. waxaad kusoo dhawaataan course cusub oo nutritiona sida naga soo codsadeenba daawadayaasha ama dadka ku xidhan channelkeenan casharada caafimaadka, oo course-kaasina ay markaa codsigooda ahaa ay soo codsadeen. nutritionkana ana markaa maskaxdeeda ku jiray inaan markaa bilowbo oo aan soo dhexgeliyo, iyo waxaa jiray dadka commentigooda inta badan ma soo wada qaadan se laakiin waxaa jiray yiraahdeen kasoo hadal waxaad kasoo hadashaa active transportig iyo osmoticii iyo diffusionkii. insha allah kuwaana casharadeena waa ka dhigi doonaa lesanadana soo socda. intaa muddada dheeraadi ka maqnaana waxaan ku maqnaa imtixaankii jaamacadda ayaan ku jiray, sababtaasaan markaa waxu soo gelin doonay waxu soo gelin waayey. markaa iminkana waa wada joognaa, aan kusoo wada dhawaana cashar cusub oo ah nutritionka maanta dhigan doonaa. nutritionka sida magaciisaba waa nafaqo. lasankeeni koowaad ayaan dhigan doonaa. haddaan bal definition u sameyno ama qeexitaan u sameyno nutritionku waxawey waa study, waa barashada la baranayo of nutrient, la baranayo nafaqo in food, nafaqadaas ku dhex jirta cunto, how the body iyo sida jirku isticmaali lahay iyadoo la baranayo cuntooyinkii nafaqooyinkii cuntooyinka ku jirtay iyo qaabkii jirku isticmaalayay qaabkii loo baranayay. marka waxaas intaas markaa waxaa la dhahaa nutrition la dhahaa. nutritionku wuxuu all nutritionku also focus nutritionku markaa diiradda wuxuu saaraa on how people dadka can use dietary, say dadku quudkooda u dooran lahaayeen si u yareeyaan xanuunada markaa khatarta ee markaa ku imaan kara. qofku markastoo qofku cuntadiisu yaraato oo amiteedkiisu xumaado oo markastoo xanuunada ay ka faa-iideysan karaan, xanuunada fursada gaada ay ka faa-iideysan karaan. marka qofku waxaa lagu inta badan wuxuu diiradda saaraa nafaqooyinkan ama cunto cuntaa waxay diiradda saareysaa sida kaaga difaaci lahayd xanuunada markaa kugu soo socdaa. laba nooc baa loo qeybiya nutritionka, macronutrient iyo mid kale la dhaho macronutrient baa loo qeybiya iyo mid kale la dhaho micronutrient. haddaba macronutrient haddaan ku horeyno, macronutrientigu muxuu yahay? macronutrientigu wuxuu yahay nutrient waa nafaqo that people dadku need uga baahan in relatively large quantity, xaddi badan aad uga baahan tahay. it's a divided waxaa loo qeybiyaa into three parts, saddex qeybood ayaa loo qeybiyaa: carbohydrate, protein iyo fat. carbohydrate iyo protein iyo fat baa loo qeybiyaa. si ay u kala sarsareeyaanna ayaa mid walba jirka ugu kala badan yahay. carbohydrate-ka ugu sareeya oo jirka inta ugu badanba carbohydrate weeye, waxaa kusoo xigaya proteinka iyo fatiska, kuwaasaa kusoo xigaya oo iyagu qadarayaguna yaryar ka qaadan karaan. inta ugu badan waxaa percentageka ugu badan waxaa haysta carbohydrate-ka haysta. carbohydrate-ka si wada ogsoonahayba isaguna wuxuu dhisaa carbohydrate-kuna wuxuu ka qayb qaataa tamarta oo markaa qofka ku shaqeynayo, sida proteinku uu dhiso markaa jirka garowdka uu koritaanka jirka ka shaqeeyo, fatiskuna uu kaabo. haddaba haddaan mid u aragno, carbohydrate-ku aarda sugar waa sonkor iyo starch wey sokor kaydsan iyo fibers found in fruit iyo founds oo laga helo fruitiska iyo fibers laga helo fruitiska iyo greenska cuntada markaa baalka leh, vegetableska aan milky product iyo waxyaalaha markaa caanaha kasoo jeeda. intaasba waxyaalaha laga helo wey carbohydrate laga helo aad markaa tamar aad ka helisay ama wax energy aad ka helisay. haddaba common foods cuntooyinka haddaba ugu caansan ee laga helo carbohydrate-ka include waxaa kamid ah greenska kamid ah. greensku maxay yihiin? waa sida roodhida, baastada iyo breska aan cunno, cuntooyinka kasoo jeeda dhirka soo jeeda inta badan. fruitiska kamid ah sida appleska, tufaaxa, bananaska iyo berries-ka iyo mango iyo orange-ka. fruityada halka kuwada yaaloo dhanba waa fruityaha cabitaan aad u heli kartid, cun ahaana aad u cuni kartid oo aad markaa iyagoo dee aan dabla la gelin aad cuni kartid, oo iyaga fruitka dab lama geliy sida xagga vegetableska kaleese, laakiin sida cabbage-ka iyo waxyaalaha oo dabka la geliyay iyaga. dairy product waxaa jira dairy product oo kasoo jeeda subag oo such as milk iyo caano iyo waxaas ah. snack foods baa cuntooyinka markaa snack foodska iyo cuntooyinka macmacaanka ayaa kamid ah, such as keega aan cookieska iyo waxaa markaa la kariyo. thank you, aad baad u mahadsantihiin. la soco lasanka labaad, wixii comment ahna halka hoose igu reeba.